gabagabada halganka maanta socda wuxuu dhali doonaa ilaahay idankiisa aabbayaasha Soomaaliyada cusub iyo geesiyaal taariikhdu ay xusi doonto sidaas daraadeed hogaamiyayaasha maanta waa inaga ayaana ina seegin fursadaas hadii aan la yiraahdo maanta dalkeena iyo dadkeenuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaanayn guuldarro waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynayo khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay